Dad Juudaanley ah ama dadka cuna ee dhiigga ka dhuuqa ama ka jiiqa oo maalmahan dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaalay saar share gareena soo follow garee page-kan si saaxiibo badan oo muuqaalkan u gaaro mahadsanidin badan. Dadka Juudaanleyda ah ama dadka cuna ma ahan kuwo ku cusub magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena Soomaaliya inkastoo aysan muddooyinkan dambe ku badnayn balse horta maxay tahay Juudaanley? Juudaan ama Juudaanley waxaa loo yaqaanaa inta badan dadka cuna ee dhiigga ka dhuuqa ama ka caba amaba dadka qaar waxay u garanayaan dadka dhiigga ka jiiqa dadka kale iyagoo qofka dilaya ama wax ku dhufanaya si ay u jaraan xididada dhiigga kala gudbiya iyagoo markaasi halka qofka ama xayawaanka ay ka jareen xididka ay afka u dhiganayaan. Waxaana inta badan lagu arkaa qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo dunida kale, waana qabatin qofka qabanaysa ilaa dhiiggaas caba maahine aanay joogi karin iyagoo markaasi aysan ku qasbanayn kaliya amaba aysan kaliya dhiig ka jiqin dadka, sidoo kale waxa ay dhiigga ka dhuuqaan ama xididada inta jaraan dhiigga ka cabaan xayawaanaadka qaar ka mid ah oo ay ka mid tahay yaanyuurta ama bisada. Maalmahan dambe ayaa dadka noocaas ah ee Juudaanleyda loo yaqaano waxaa lagu arkayay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Xamar Jajab iyo degmada Wardhiigley ama Warta Nabadda sidaad u taqaanba xaafado ka mid ah, taas oo argagax gelisay naxdinna ku beertay dadka. Juudaanleyda oo haatan aan sidaasi Muqdisho ugu sii tiro badnayn balse khatartooda leh ayaa si gaar ah u beegsanaya carruurta yaryar maadaama aysan ku dhiiri karin in dadka waaweyn ay weeraraan, waxayna inta badan raadiyaan carruurta yaryar ee albaabada ama guryaha hortooda ku ciyaaraya. Aabbe Sheekh Nuur oo qof qaba cudurka Juudaanka uu wiilkiisa weeraray laguna qabtay isagoo dhiigga ka jiqaya ayaa ka waramaya xaaladdan soo cusboonaatay iyo sida wiilkiisa ay wax u gaareen kadib markii uu weeraray qof qaba cudurka Juudaanka. nin baa ceejiyey dhinacna waa ka goostay intana ku ceejiyey xarigu soo qabtay uu ku dili rabay naag ilaahay amarkiisa oo banaanka soo bixaysay ay aragtay oo ku fuji weysay waxayna u fujisay dhagax marka dhagaxa uu fujisay ninkii waa cararay dhalinyarada dog bursatay ninkii waa la soo qabtay waa wadne sabdhiga sirintii ay geeyeen markaan geeyne waxaa la dhahay ninkaan wax ma ka qaban karin haddaa wax ka qaban karin anagana sii markii waxayna dhaheen bas ilaa beri 2 saac aan yeeynaa waa iska asii wiilka isla keena waxaa loo gudbinaa ee dhaheen maxkamadda fahmino wiilkayga adi dhaawac fara badan soo gaaday ilaa xataa argagax zaid ah ka muuqdo meeqa dhaawac ka muuqdo waxaa ka muuqda halaas waa muuqantaa ma fahmino 18 qodob baa la soo taray ma fahanti inta qoortaan xariga ugu yaalay iyo cijooyin iyo adigu dili rabay aniga ilaahay amarkii naaga soo baxday naagtii ka fujisay oo nimanka daabeeyeen ee noo sheegay inay qaniisho tahay xataa naag gabar ka fujisay halkaas uu ka haysto ujeedii antana ceejo uu ku hayo cunugii wadlo farfar oo dhaay waa qof iska caadi su'aal iyo shaati wato oo labisan hadaa aragti kana Juudaan leeyahay taamadis laakiin saada arkay ninka dad cun waay baal waay hataa meesha markaan geeyna cunug oo dhaayay sheegay. Fadlan taxadar walaal, si gaar ah carruurtaada uga warqab marka ay banaanka guriga joogaan. Muuqaalkan like saar share gareena naguna soo biiro follow na soo dheh mahadsanidin badan.